kulanti wacan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa dhanka ciyaaraha iyo waxyaabaha ay qorayaan wargeysyada ka faallooda kubadda cagta. Sheekooyinka aynu soo qaadi doono waxaa ka mid ah tababaraha cusub ee Man United Erik ten Hag, isbedelada uu horseedi karo United, tallaabooyin hadda qaaday oo aad loogu amaanay, jamaahiirta United oo sugi la goorta uu bilaamayo xilli ciyaareedka cusub, Ronaldo oo diiday inuu ku soo laabto tababarka kooxda oo maanta oo Isniina laga sugayay, iyo Arsenal oo ku dhawaaqday saxiixa Gabriel Jesus oo noqday ciyaartoyga 13aad ee xidha lambarka 9aad, Barca oo ku dhawaaqday 2 heshiis oo degdeg ah, Manchester United oo heshiis la gaadhay Christian Eriksen. Qodobadaas aynu soo qaadi doonaa. Muuqaalka intaynaan bilaabin like saar, siina share garee. Asxaabta inaga cusubna waxaynu ka dalbanaynaa inay nagu soo biiraan. Aynu ku bilownay. Run ahaantii tababaraha cusub ee United Erik ten xilli ciyaareedkan waxaa laga filayaa isbedel weyn inuu ku sameeyo kooxda dhan walba. 22 jirkan ayaa inta badan lagu sheegaa in qaab ciyaareedkiisu ku dhow yahay qaab ciyaareedkii John Cruyff. Ninkan intii uu joogay kooxda Ajax ilaa 9 kooxood ayuu la ciyaaray, waana lagu tilmaamo dadka ugu fiican kubadda weerarka. 412 kulan ayuu isagoo macallin ah soo maamulay. Waxaa la yaab leh 277 kulan inuu ku guuleystay. Taasi waxay ka dhigan tahay in kulamadii uu soo maamulay 64% guuleystay. Wuxuu ka badan yahay Sir Alex Ferguson oo 58% guushiisu tahay. Wuxuu sidoo kale ka badan yahay Jose Mourinho oo 60% oo ah tababarayaasha United soo maamulay. Erik ten ayaa 10 qodob ku soo rogay kooxda. Waxaynu eegi doonaa qodobada aadka loo hadalhayo ee saameynta ku yeelan doona isbedelka United. Qodobka aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah wuxuu sheegay inuu fursad siin doono ciyaartoyda da'yarta ah, taasi oo ka dhigan in sanadaha soo socda United jiil dahabi oo soo kici doono. Dabcan waxaa la sugayaa fursadda uu siin doono da'yarada oo akaadimiyada uga yeedhay ee uu ka midka yahay Garnacho. Dabcan arrinta kale ee aadka loola yaabay ayaa ah inuu xitaa tarabuunka ka wargeliyay inay habdhaqankooda wax ka bedelaan, iyagoo muddooyinkii ugu dambeeyay lagu yaqaanay tarabuun la qabsaday guuldarada badanaana aan dhiirigelin ciyaartoyda. Ciyaarihii ugu dambeeyayna u soo joogayna haafka horeba ka dareeraan garoonka, sida ciyaartii Liverpool. Garoonkii lagu naanisi jiray malcabka riyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isku bedelay garoonka niyad-jabka iyo koob la'aanta. Haddaba Erik ten ayaa ku wargeliyay inay sidii lagu yaqaanay ku soo noqdaan, sidoo kalena heesii lagu yaqaanay ay ku dhiirigelin jireen ciyaartoydooda ay soo celiyaan. Maanta oo Isniin ah ay ahayd inuu Cristiano Ronaldo ku soo laabto tababarka kooxdiisa Manchester United, laakiin waxa uu si bareed ah dib ugu dhigay waqtigii la isku ogaa inuu soo laabto si uu kooxdiisa culays ugu saaro in loo fuliyo codsigii ahaa in la iibiyo xagaagan ama la fasaxo. Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegaysa in Cristiano Ronaldo uu tababarka uga maqnaa arrimo qoys, laakiin waxay dabka ku sii shidaysaa xiisadii hore u taagnayd ee ahayd inuu doonayo inuu tago. Tallaabadanina ay tahay xeelad kale oo culayska ugu sii kordhinaya Red Devils. Kooxda Arsenal ayaa ugu dambeyn sugitaankii badnaa ka soo gaabisay jamaahiirteeda, iyadoo ku dhawaaqday saxiixa weeraryahanka Gabriel Jesus. Heshiiska Gabriel dib ugu midoobay Mikel Arteta oo ay hore City u soo wada joogeen ayaa ah mid gaarsiisan ilaa 2027, isaga oo la wareegay maaliyadda lambar 9 ee kooxdaasi. Gabriel Jesus ayaa noqday ciyaartoyga 13aad ee Arsenal u xidha lambarka 9aad tan iyo intii horyaalka Ingiriiska ee Premier League uu qaatay magaca sanadkii 1992, waxaana tan iyo waqtigaasi laga diiwaan galiyay xogo kala duwan oo qaarkood niyad jab lahaayeen oo laga soo joogay ciyaartoydii lambarkaasi soo xidhay. Arsenal ayaa meel u sii dhigtay Gabriel Jesus lambar 9, iyagoo Eddie Nketiah siiyay lambarka haliyaga kooxdaasi ee Thierry Henry ee lambar 14, taasi oo ka dhigan in waqti horeba ay Mikel Arteta u sii diyaariyeen Gabriel Jesus inuu xidho lambarka ugu jecel yahay. Jesus ayaa raaci doona xidiga waaweyn oo tayadoodu sareysay oo muujiyay inay u qalmaan xidhashada lambar 9, ama waxa uu noqon doonaa mid aan u qalmin
oo ku fashilma sidii ku dhacday ciyaartoy kale oo loo hanweynaa. Barcelona ayaa dhammaystiray saxiixa difaaca reer Denmark ee Andreas Christensen iyagoo kula soo wareegay si xor ah kadib markii uu ka tegay Chelsea. Daafaca dhexe ayaa Barcelona u saxeexay qandaraas 4 sannadood ah. Kooxda ayaa ku dhawaaqday in lacagta lagu burburin karo qandaraaska Christensen inay gaarayso 500 oo milyan. Christensen ayaa noqday difaaca dhexe ee labaad ee si xor ah uga tegay Chelsea una wareegay Spain kadib markii Antonio Rudiger isna ku biiray Real Madrid. Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa xiddiga khadka dhexe ee reer Ivory Coast ee Franck Kessié oo si xor ah ugala soo wareegeen AC Milan, kaasoo hore madaxweynaha Joan Laporte u sii sheegay in Arbacada ku soo bandhigi doonaan garoonka Camp Nou. Barcelona ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Franck Kessié uu yahay ciyaartoy Barcelona ah oo ay la soo wareegeen, waxaanu qalinka ku duugay oo uu saxeexay heshiis 4 sannadood ah oo lagu xidhay lacag nus bilyan ah oo lagu burburin karayo qandaraaskiisa. Manchester United ayaa heshiis hordhac ah la gaadhay xiddiga weyn oo ku jiray liiska ciyaartoyda oo tababare Erik ten Hag raadinayay, kaasoo weliba leh khibrad waqti dheer oo horyaalka Premier League ah oo sanado badan ka soo ciyaaray. Erik ten Hag ayaa maanta oo Isniin ah ku faraxsan shaqada ay qabatay kooxdiisa Man United oo 2 saxiix si rasmi ah ugu dhawaaqaysa, waxaana sidii aanu hore idinku soo gudbinay Carrington soo gaaray difaaca bidix ee reer Netherland ee Malaysia oo saacadaha soo socda mari doona tijaabada caafimaadka ka hor inta aan saxaafadda loo soo bandhigin. Kooxda Man City oo suuqa si weyn ugu jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay, gaar ahaan xiddigahay dirayso, ayaa markale ciyaaryahan cusub ku soo kordhisay safkeeda. Saxiixa cusub ee Sky Blue ayaa ah khadka dhexe Leeds United ee Calvin Phillips ayuu Pep Guardiola u arkay beddelka muddada dheer ee kabtanka Fernandinho oo kooxda dhawaan ka tegay. Sky Blue ayaa burburiya khadka dhexe ka saxeexday heshiis ilaa 2027 ah iyagoo 42 milyan oo pound ka soo bixinaya heshiiska, marka gunooyinka lagu darana gaadhaya ilaa 50 milyan. Wararkeena ciyaar wanaag intaas asxaabay intaan kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.